asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhowaada aad iyo aad umahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago haweeney asal ahaan kasoo jeeda wadanka shiinaha islamarkaana maayar ka ahayd magaalo ku taala gobolka california oo qiratay inay basaasad u ahayd wadanka shiinaha waa ay iscasishay waxaana laga yaabaa in xabsi ay mutaysato maadaama dembigeeda ay qiratay maxay tahay waxyaabaha basaasnimada ee lagu soo eedeeyeyna sidoo kale waan idinla wadaagaya madaxweyne Trump waxa uu weli ku sugan yahay wadanka Shiinaha waxaana uu la kulmay madaxweynaha wadankaasi Xi Jinping waxayna isla soo qaadeen dagaalka Mareykanka iyo Iran ka dhaxeeya iyo sida muhiim ay u tahay in marinka Hormuz uu furnaado waxaana Trump uu sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii colaadda xal looga gaari lahaa marinka Hormuzna uu u noqon lahaa mid furan arrimahaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada aan ku bilaabo maayar magaalo la yiraahdo Arcadia oo aan ka fogeyn Los Angeles California islamarkaana asal ahaan ka soo jeeda wadanka Shiinaha oo la yiraahdo Eileen Wang konton iyo 8 jirna ah ayaa waxa ay qiratay dambi ah in ay propaganda wadanka Shiinaha oo danta wadanka Shiinaha ay ka shaqeynaysa islamarkaana propaganda wadankaasi dan u ah ee Mareykanka gudihiisa ay ka faafinaysay haddaba haweeneydan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanayd sanadkii 2022 ayaa waxa ay ka mid noqotay dowladda hoose ee magaaladaasi la yiraahdo Arcadia oo ilaa 54,000 oo qof ay ku nool yihiin la yiraahdana 42% dadka halkaasi ku nool asal ahaan wadanka Shiinaha ayay ka soo jeedaan haddaba haweeneydan marka muxuu yahay dambigan ay qiratay ee basaasnimada ah oo lagu soo eedeeyay sanadkii 2020 ilaa 2022 ayaa iyada iyo nin ay saaxiibo wada ahaayeen waxa ay lahaayeen website islamarkaana luqadda Englishka ah lagu qorayay website-kina waxa uu ahaa website ay xogta ka helaan community-ga Shiinaha ee wadanka Mareykanka ku nool marka mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Shiinaha ayaa warbixino u soo qorayay haweeneydan kadibna website-keeda ayay soo gelinaysay marka macnaheedu waxay tahay warbixinada dowladda Shiinaha ay doonayso ayaa loo soo dirayay kadibna website-keeda ayay ku soo daabacaysay si muwaadiniinta Shiinayska ah ee Mareykanka ku nool iyo kuwa Mareykankaba ay u akhristaan marka waxa ay qiratay marka haweeneydan in ay ka heshay amaro web app-ka la yiraahdo WeChat loogu soo diri jiray warbixinada oo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Shiinaha ay ugu soo dirayeen warbixino horey loo soo qoray markaas kadibna warbixinadaasi waxa ay beeninayeen in Shiinaha ay ka jiraan xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha waxaana sidoo kalena markaas kadib ay u gudbinaysay inta qof ee aragtay amaba akhrisatay qoraaladaasi ay soo gelisana dib ayay ula wadaagaysay mas'uuliyiintii u soo gudbiyay hadda bishii June ee 10keedii sanadkii 2021 ayaa waxaa loo soo qoray warbixin dhahaysa waxa suuqa kama jiraan magaalada Xinjiang waa meesha muslimiintu ay ku badan yihiin islamarkaana dowladda Shiinaha lagu eedeynayay in dadka muslimiinta ay xirto islamarkaana ay ku qasabto xitaa diintooda inay ka baxaan waxaana warbixinta sidoo kale ku qornayd in aysan jirin caruur qasab lagu shaqaalaysiinayo gaar ahaan kuwa soo saara suufka meelo kala duwan oo wadankaasina waxa lagu eedeynayay in qasab dadka lagu shaqaalaysiiyo si ay suufkaasi ay u soo saaraan gaar ahaan kuwa muslimiinta marka warbixinadaasi oo kale ayaa loo soo gudbinayay kadibna website-keeda ayay ku soo daabacaysay marka dambigaasi ayay qiratay waxaana ay xukunkeedu uu noqon karaa 10 sano oo xabsi ah ayuu noqon karaa marka hadda waxa ay maayarka magaalada Arcadia ahayd laga soo bilaabo 3 bishii labaad ee sanadkan 2026 ilaa iyo 11kii bishan May oo hadda ku jirno oo maalintii Isniinta ahayd oo ay iscasishay isla markaana sidoo kalena dambigeedan basaasnimada ah ay qiratay basaasnimadu dhowr nooc ayay u kala baxdaa mid qofku waa in xogta wadanka uu joogo intuu ururiyo oo wadanka uu wax u basaasayo uu u diro laakiin hadda gabadhan propaganda ayay gudbinaysay dowladda Shiinaha oo iska fogeynaysa eedeymo loo soo jeedinayo kadibna warbixinadaasi marka loo soo qoro iyaduna website-keeda ay soo geliso kadibna dadkii u soo diray waxay la wadaagaysay inta qof ee aragtay amaba akhrisatay maqaaladaasi ee website-keeda
ay soo gelinaysay marka arrintaasi ayaa lagu soo eedeeyey halkaasi dembi ayayna qiratay 10 sano oo xabsi ah ayaana laga yaabaa inay ku mutaysato maadaama dembigeeda ay qiratay dhinaca kale madaxweyne Trump waxa uu ku sugan yahay magaalada Beijing ee wadanka Shiinaha madaxweynuhu waxa uu shalay la kulmay dhigiisa dalkaasi Shiinaha Xi Jinping si aad ah ayaa loo soo dhaweeyay ciidamo fara badan ayaa saf u galay oo salaan uu ka qaatay oo labada madaxweyne ay ka qaateen kadibna xalay casho sharaf ayaa jirtay madaxweyne Trump sidoo kale waxa la socda inta badan dadka maalqabeennada ama kambaniyada waaweyn ee Mareykanka madaxda ka ah waxaana madaxweyne Trump uu sheegay inuu madaxweynaha Shiinaha ka codsan doono in ay u furaan dadkan maalqabeennada in wadankooda ay maal gashtaan Shiinaha waxa lagu yaqaanaa inuu yahay wadan inta badan maalgelinta dibadda ka xirxiran sidaas darteed waxa uu u waday mas'uuliyiintan waxay ahayd madaxweyne Trump sida uu sheegaba in Shiinuhu ay u furaan wadankooda maalgashadayaashan Trump oo xalay markii uu kulmayeen labada madaxweyne ka hadlayay ayaa wuxuu yiri waxaan codsaday kambani kastaba qofka ugu sareeya oo madaxda ah inuu soo raaciyo xitaa qofka labaad iyo qofka saddexaad ma aanan dalbanin ayuu yiri marka labada madaxweyne waxyaabaha ay sida aadka iskula soo hadal qaadayeen waxa kamid ah dagaalka Mareykanku uu kula jiro Iran waxa uu sheegay madaxweyne Trump in madaxweynaha wadanka Shiinaha uu yiri waxaan ka geysan doonaa gacan sidii colaadan xal looga gaari lahaa iyo waliba sidii loo furi lahaa marinka Hormuz Shiinaha waxaan ognahay shidaalka ugu fara badan waxa uu ka iibsadaa wadanka Iran marinka Hormuz ayuuna maraa marka colaadan iyo waliba xirnaanshaha marinka Hormuz aad ayay u saameynaysaa wadanka Shiinaha marka madaxweyne Trump waxa uu yiri waa uu ogolaaday inuu gacan ka geysto maxaa yeelay saameynta ugu badan wadanka Shiinaha iyo arrintan ay ku yeelanaysaa iyadoo hadda sidoo kalena labada dhinac wali wada hadalkoodu uusan horay u soconin dowladda Pakistan oo dhexdhexaadinaysana lagu eedeynayo hadda oo mas'uuliyiinta Mareykanka qaarkood ay ku eedeynayaan in arrintan aysan dhexdhexaad ka ahayn maadaama diyaaradihii dagaalka ee Iran qaarkood wadankaasi Pakistan ay geysatay isla markaana saldhigyadooda ay fadhiyaan President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help. marka madaxweyne Trump waxaa la filayaa inuu maalinta beri ah dib ugu soo laabto Mareykanka maadaama booqashadan muddo 2 maalmood ay ahayd waxaana la filayaa labada madaxweyne heshiisyo dhowr ah in ay kala saxiixdaan oo ay la xiriiro dhinaca sidoo kale arrimihii taariifka ee la isku hayay iyo sidoo kaleba ganacsiga labada wadan u dhaxeeya marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo asxaabay aad iyo aad u mahadsantihiin